wuxuu yiri eegay Soomaalidu maanta xaalkeedu waa caws dumaa ah oo kale cawskii waa madoobaada marka gaasko kale uu noqda wuxuu u baxaa si aan caadi ahayn buu ololay Soomaaliya situationkeedu siyaasiyan waa caws dumaa ah inana tarqiiban noqonaynaa haddii la yiraahdo ayl bay qabsadeen eegay tiradeena la eegi mayeen ma jeerteen si aad barayl bay ka qabsadeen hadday ayl qabsadeen waxa fasirka baxaya markiiba wuxuu yahay halgankii gudaha ka bilowday horta qoladeedii ayl gashay dad badan baa isweydiiyo waxay yiraahdaan dhowr iyo 10 nin maxay ka wadeen inay galaan ayl oo calool ah oo bad ku xeeran tahay يعني dad badan baa waxay la tahay nooc waali ah markii in maaragtay action-ka yagaasu ahaa laakiin haday ka warqabi lahaayeen anagu macna weyn baan uga dan lahayn dictatorkii Soomaaliya haystay oo umada dhibaateeyay xilligaas wuxuu ku beegnaa Maxamed Siyaad Barre xilligaa wuxuu ku beegnaa xilligii inuu Mingiste la heshiiyo ay soo gaartay jabahadihii dibadda ka dagaalamayo SDF iyo SNM ay gabaabsi galay oo la xiray muxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf madaxdii SDF ta la xiray SNM tana marka aanay ay xoog ay muxuu ahaa xoogeedu marka shiiqay oo ay ku marka waxa ay ku heshiiyeen Maxamed Siyaad Barre iyo Mingiste Xayl Maryam waxay ku heshiiyeen mid walba inuu labada dal jabhadaha midka kale uu ku taageero inuu joojiyo dhinacan Soomaaliyana waxa laga taageeri jiray Tigreega iyo Eritreanka iyo Soomaalida oo intaas oo Soomaalida Soomaali galbeed loo oran jiray ama ogaadeen marka arintaas intaanay dhicin laakiin jawigeedu soo muuqdo ayaanu tashanay annagoo rag aan badnayn marka ahayn waxaanu niri halgankii dibadda waa ka qaboobay waa la ciifay Siyaad Barre waxa muuqatay marka oo la isku wareysanayay ifafaala ah boqorradan Khaliijka inuu maaragtay waa tii barnaamijkii Carabiyeynta wadanka ana waatuu jiray marka xan waxa arlada ku faaftay Siyaad Barre wuxuu doonayaa inuu wiilashiisa mid ka mid ah u diyaariyo dabadii asaga dabadii boqor u diyaariyo wadankuna galo boqortooyada galo walwalkaas waa jiray dabadeedna qorshaha waxa yimid oranaya heshiiskaas iyo jabhadaha hal kala xiro anagu marka waxaanu ku fakiray Siyaad Barre inta uu ku mashquulsan yahay dibadda jabhadihii ahaa liciifintoodii Mingiste farxadda ay ku heshiinayaan gudaha aynu ku dhufanno marka waxa jirtay khidad kale oo markaas u ahaa muhiim aragtida siyaasiga oo Siyaad Barre muhiim u ahayd oo ahayd SSDF xagga halganka ka waday oo dadka Puntland ka soo jeeda majority-gooda maaragtay ku abtirsanaysay si hoose hadii loo la isu sii xantana Siyaad Barre eedda u saarayay saddex jifiyood oo isku jifi ah war arinta shiishka ina saaran saddexdii waa wada dhanyihiin inay halganka gudaha ka wada bilaabeen inagoo sawirka sameeynayna bal horta saddexdii aynu ku dhamaano ragaan aynu hadda action-ka ku qaadayno Siyaad Barre wuxuu oran doonaa ma dhanyihiin markaynu falka sameeyno waa dhanyihiin hadii la yiraahdo walwal badan bay gelinaysaa xirsi waxaanu kula banansanay soo qarnu fadhigiisu ahaa inuu qarxisimaado annaguna aanu xamar iyo halka garowa noo ahayd bar kulan halka iska wada raacaan qarxis ugu tago xirsi wuxuu ahaa nin runta kaliya ku hadla guriba qol baa la siiyo degana marka maalin habeen inuu qolka joogo annuna ugu nimaado soo dhaqsana marka maalin man ka dib dhacan wuxuu halka waa aan ku dhibtooda anaga buu nagu leeyahay meeshan waxa iga qabsatay dib maxay tahay dhibto gabar yar oo 4 jir baa waxay igu haysaa inta hadba ay timaado awoowe adigu maxaa isu daboolaysaa ba ilaahay awoowe adigu xagee ka timi ma haddana soo noqonaysaa marka la yimaanaysa awoowe adigu magaalada ma joog jirin goorma timi nafti bay qabatay
saan yeelo gabadha yar been uma sheegi kara inaan run sheegana ma rabo bi wax xujoobi bi gabadha yar waxay ugu kaliftay bi inaan magaalada inta ka baxo dhuunto inaan been u sheegana ma rabo bi inaan run sheegana ma rabo soo inaan magaalada ka taga ma marka nin jecel buu ahaa runta wuxuu oran jiray war arintaas anu waan ka fashilayaa runteedaan sheegayaa iga leexiyo qof kale ha ma aragtay qof kale ha sameeyo si maskaraati ah hayeen marka sidii baanu tiradoodu kooban tahay laakiin reer ka wada ah maxamuud Saleebaanka ayaanu ma aragtay gudaha arinta ku dhufanay ay marka waanu ka doonay intaan gudaha gelin in halganka gudaha loo soo wareejiyo waa muhiim baan waa isla ogolay laakiin waxaanu dood dheer ka galay maxaan ku dooranaynaa ayl maxaan ku dooranaynaa ciidamadii siyaad barre waxay joogaan xadka Itoobiya dogan bay joogaan marka aynu ayl gallo ayl badda ina ka shishaysa calool baynu galay marka guusha aynu gaari karro ayl markaan gallo hala gorfeeyo xirsi waxa u muuqatay aniga in barsoona kala dooday inkastoo markaa nin yar ahaa waxaan ku yiri xirsiyow markaynu ayl gallo maxaan ku xijinaynaa xirsi magan ayl markaynu gallo maxaan ku xijinaynaa talaabada xigta ii sheeg wuxuu yiri eegay Soomaalidu maanta xaalkeedu waa caws dumaa ah oo kale caws dumaa waxa la yiraahdaa markii inta sanadka roob badan doo barwaaqa oo cawsku aad u baxo laba roob oo soo socda iyadoo la daaqin haddana aan roob ku diin cawskii hore sanadkii hore baxay sanadkii xigay lamana daaqin markuu daay lama daaqin sanadkii markii jiilaalkiina lama daaqin roobkii soo socday la sugayana waa baajiyay cawskii waa madoobaada marka gaasko kale uu noqda wuxuu u baxaa si aan caadi ahayn buu olole Soomaaliya situationkeedu siyaasiyan waa caws dumaa aynana tarqiib baynu noqonaynaa buu haddii la yiraahdo ayl bay qabsadeen eegay tiradeena la eegi mayeen ma jeerteen siyaad barre ayl bay ka qabsadeen hadday ayl qabsadeenna waxa fasirka baxaya markiiba wuxuu yahay halgankii gudaha ka bilowday marka wuxuu yiri waa soo gelayaan SNM qolada xamarna waa kacaysa sida darteed tarqiib baynu noqonaynaa 13 waa dhimaanaynaa laakiin Soomaaliya boqortooyo inay ku asaasanto baan ka badbaadinaynaa caws dumaayo way hal mar bay isqabsanaysaa halganku cirku ku dhigaya si afweynana waa dhacaya marka wixii haraa ayagoo xor ah tashade taasuu nagu qanciyay aniga dooda adag la horfadhiyay waa aqbalay yeeshan isu diyaari marka inaan tarqa ano adinto waxaan qabnay ummadda hadii laga kacsho ninka dictatorka ah hadaa ku dhimataan ku naar mudan maysaan waa ku jina gelaysa taasaan qabnay kitaabkii uu gafay culimadii buu laayay ummadii buu caburiyay magaciisi dagaalka hadaad markaa dhimatid aad isleedahay janna ku galaysaa geesi baa tahay ma baqaysid marka anagoo tira yar ayaanu ku indhacadkaynaan meeshii gallo marka waxaanu ku beegnay 2 sano ku dhawaad baanu diyaar garowga wadnay inaan hawsha gudaha nooga suura gasho marka ayl waxaanu ku beegnay shalay oo kale ayaa Djibouti waxa isugu tagay waxa ku heshiiyay isuguma tagayna waxa ku heshiiyay isku afkartay Mangista Xayla Maryam Maxamed Saad Barre oo isma Xasan Guule Abtidoon oo marka gogasha dhigay markii shalay galab oo kale ay heshiiyeen ayaanu saako kale ay ku dhufan marka waxaanu qabanay ayl waxaanu galay salaada subax baan dushiisa ku tukanay kumaanu talagelin in cid dilo markii horaanu u dirsanay ragna maxamed xaaji aadan baa ayl muddo joogay marka wax walba maxamed baa soo ogaaday soo ilaaleeyay in cid dhimata ma aanan rabin maca askarta markii salaada subax aan ku dul tukanay qorraxdeena soo bixin wali oo qabow jiro nin askari oo waardiye ahaa saldhigga booliska daawad nimankii loo qaybshay meeshaas nin ka mid oo naga mid ah ayaa qorigii askari uu dharbaax ku dhufto kaga naxsh qorigii baa ka dhacay qorigii ka qaatay wariga gal qolkan askartii wixii meesha joogay qolkii baan ku xaraynay waxba maana yeelin waxaanu magaaladii ka qabanay wixii isgaarsiinaha baanu ka qabanay
intaas subaxnimadii baanu samaynay waxyaalaha cajiib kale aanu la kulanay waxaa ka mid ahaa ummadii baa xirsi u khudbeeyay hadhow markii dadkii isu soo baxay oo qorraxdii soo baxday oo adigu hal saac iyo bar laba saac meelaha ayuu dadkii u khudbeeyay wuxuu yiri maanta ilaahay dhulkeena wuxuu ka kor qaaday maanta xisbigii hanti wadaaga oo u dhaliilayo markaa oo saa ahaado ala la diriirka ahaa waxaana maanta curtay kacaan xaq iyo wanaag inoo horseeday sidaas oo kale dadkii khudbad ka mid tahay buu khudbeeyay waxa qosol lahaa in cilmi nafsi iyo anthropology buu ahaa xirsi ina hebel baana oo xirsi baana meeshu ka oran la hooyadiisu sheegtado oo ah reer ayl ah ina heblaaye heblood baana hay buu yiri ninka idin la hadlaya oo xirsi magan looga yaqaan maxaa warbaahinta xageena waa saciyo dadku waa qosleen aad bay noo taageero noo soo dhaweeyeen marka waanu ka baxnay magaaladii baanu ka baxnay marka badda yaalay oo kalluumaysi ah taar saarna ayaa laash xeebta intay kala carareen nimankii maamulka ka joogay qaar ka mid ah bay markabkii warka u geeyeen ogaanay in maaragtay siyaad bare warkii gaaray ka soo durugnay oo meel biyale baanu fariisanado ilbi ay ka qurquraan magaalada u dhow ka qulqulaan magaalada u dhow baanu fariisanay halkaas odayaashii noogu yimaadeen odayaashii waxaan xasuustaa xirsi oo oday noo ahaa iyo maxamed odayaashii waxaanu kula heshiinay oo lagu la heshiiyay xabadda aan iskor marino xabad nagu soo rida laakiin xabadda aan isdul marin ayaynaan islayn nin la yiraahdo qamaan boos oo fariidaha Allahu raxmo waa dhinta hadee yaa wuxuu wariyaa warmaanto xabad baa dhacayso ninna ma dhaawacmin suuroobi meysee aniga meel iskaga dhufanaya xabadda buu yiri inaanu dagaalanay si aan muxuu ahaa qamaan farbu iska gooy si muxuu ahaa dawladdu aanay magaalada colaad ugu qaadin oo waad isla heshiisan oo isla ogtihiin loo oran nin cajiib oo ahaa waxaana loo sheegay warkii inuu xamar gaaray warka Morgan baa hor maqlay Maxamed Saciid Morgan waa soo kacay Maxamed Saciid baruhu hadalkii dhagta ugu sheegay saddexdiiba ma dhan yihiin buu ku yiri saddexdiiba waa dhan yihiin buu yiri hadalka xirsi baa aniga ii sheegay aftalyaani buu wuxuu ku yiri buu yiri hadal aftalyaani buu yiri oo isugu jira habaar iyo waxaan dadku aragba u muuqda kursigiina waa la ciiray oo waa la dhacay markii waa la soo toosay sidii macnaha haqdi uu naxay inuu macnaha miir doorsan oo kale waxaana loo sheegay garowana ay ka soo baxeen ciidamo nuguna soo socdaan anagu marka waxaanu wadanaa baasuukiyalna waa wadanaa miinada anti taagigana waa wadanaa waa la fikiray waxa war maxaynu yeelaa ciidamada aynu u xabaalay miinada ciidamada soo socda miinada aynu u xabaalo baaburka koowaad markay la qarxdo waa istaagaya aynuna u gallo meeshan miinada ku xabaalayno aynu u gallo intaynu ma garanayaan intaynu iskala bixino dhul dheer aynu gallo oo kala durdursanahay miinadu markay ku qaraxdo aynu rasaasta ku furo waa cararaya inta dadkeena inoo imanayo saasaanu niri xirsi wuxuu yiri eegay hadda buu yiri sida tiraahde markaynu miinada meesha gelino mageel dadka shacabka ah u leeyahay oo fulay bay oo dhalaya miyay ku hor qarxaysa mise baabuurkii cadowgu watay iyo ciidanku saaraaba soo hormaraya ku qarxaysa ma sheegi kartaa saaliyada meeshana waa meel biyood oo wadada geelashu waa ku aroora haddaba buu yiri inaynu dadka geelisi dhalayay ka qarxino waxa inoo ka magac roon cadowga inaynu ishelo la xabaale ma yeelin xirsi waa diid waa ku raacnaa anagu